بسم الله الرحمن الرحيم. anigu waxaan ahay xuseen aadan xasan oo looyarada Soomaaliyeed ka mid ah magaalada Muqdisho ka howlgala. waayahay maadaama aad tahay shakhsi aad ula socda baddii iyo arrimaha ilaalada xeebaha maxaa kuu muuqda horumarka ilaa hadda la sameeyey oo laga sameeyey hanaanka ciidanka ilaalada xeebaha mid iyo laba manoo sheegi kartaa mid iyo laba haddaan idhaahdo waxaan ilaaladu soo kordhisay in ay ka fogeeyaan burcadii kalluumaysiga ahayd ee dhibaatada ku haysay inay ka fogeeyaan xeebaha Soomaaliya. Mar hore waxay dhici jirtay in xeebaha Soomaaliya u soo dhawaadaan la arko markab iska taagan meel heblo oo la leeyahay wuxuu haya lama yaqaan cid la hadli karta male cid oo raadaar haysato la hadlaysa ama raadiga kula hadlaysa inaan jirin saa daradeed iska fadhiyo bil ama bilooyin iska fadhiyo. Ilaalada xeebaha maadaama hadda wiigii hore la maxkamadeeyay 32 qof oo isugu jira 3 wadan lagana soo qabtay xeebaha Hobyo meel ku dhow laga soo qabtay oo ilaaladuna soo qabatay waa guulaha ay gaareen ilaalada xeebaha. guulahaas aad sheegtay in la gaaray faa'iidada ay u tahay bulshada maxaa ka mid ah faa'iidada ay u tahay waxa weeyaan waa laba dhinac mid waxa weeyaan kalluunkii ay ka guran jireen xeebaha soke oo ay kalluumaysiga naga tagayay ayaa nabad galay oo ummadda waxa markaas ay soo galay kalluun aad u tiro badan oo intii hore ka fiican oo ka tayo fiican ayaa soo galay waa koow. waa marka labaad waxa weeyaan in badiina ay nabad gashay maadaama ay jarifiye ahaayeen marka hore ay ugxaantii iyo waxaan ay jarifayeen taana in nabad galto waa marka labaad. marka saddexaadna waxa weeyaan in maraakiibtaas qaar ka mid ah la aqoonsado calamada ay ku socdaan deedna dawladda Soomaaliya ay si diblomaasi ah oo la hadasho markaas ay tooyay dawladii cabasho loo qoro qaramada midoobay unsoon la gaarsiiyo deedna markabkaas ay tooyay si loo maxkamadeeyo. maxay kula tahay caqabadaha ugu badan ee ay wajahayaan ciidanka ilaalada xeebaha ama qorshayaasha ka socda badda ee la rabo in wax looga qabto dambiyada ka dhaca xeebaha caqabadaha haysta waxa weeyaan inaynan haysan agab fiican inaynan haysan maraakiib inaynan haysan doomo waaweyn oo dheereeya inaynan haysan inaan ku hortagi karin falalkaas dambiyada dhacay sababta waxa weeye mararka qaarkood waxaan yiri maraakiibtaas waaweyn waxay sameeyaan inay muujado hira ku kiciyaan doontii yareed marka doontii ay qalibanto mararka qaarkood waxaa dhici karta in doontii la xabadeeyaba ayagoo ku talagelin ama ayagoo wataba in qoryaha waaweyn uu loo soo gaarsiino doontii ay doorashantay ka degto waxyaabahaas oo dhan baa meesha ka dhacaya marka waxaa la rabaa marka inay haystaan doomo dheereeya oo markabka docda marka soo fuuli kara ama meel kale si ugu dhawaan kara inay helaan iyo inay helaan diyaarado oo markaas ay tahay markabka dushiisa wixii ku sido iyo wuxuu wato kor laga arki karo. bulshada sidee ay uga gacan siin kartaa ciidankeena ilaalada xeebaha ee ka shaqeynaya amniga xeebaha ummadanada waxay gacansiintooda waxa weeyaan waa gacansiin bariga inta bariga ay joogaan ay ciidankaas ay tooyay iyo waalidiintoodii inay dhiirigeliyaan ay u sameeyaan ciidanka kaliya iyo in ay ummadda Soomaaliyeed ay canshuurtii bixiyaan si ciidankii mushaarkoodii loo helo waxa ugu weyn waxay saarantay waa dawladda waxay dawladdu mujtamac hadii laga qaado canshuurtii oo canshuurtaas loogu gadin ciidanka qalab loogu gadin marka taas inay marka dib u dhis u sameeyso ciidanka oo sallan loo sameeyo loo bilaabo laakiin waxa aad muhiim u ah in ciidan wadan walba wuxuu ku dhistaa oo ku nool waxa weeyaan waa amniga iyo amaanka ciidanka ama ciidanka xeebaha leh ama ciidanka amaanka gudaha ka shaqeynaya leh ama ciidanka xuduudada intaba muhiim bay u yihiin inay dawladdu markaas ay ka shaqeyso ayna la dhiirigeliyo ciidankaasna ay la tayeeyo. su-aasha ugu dambeysay aan rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay waa maxay fariintaada ku saabsan ciidanka ilaalada xeebaha iyo shaqada walaalkaaga ciidanka ilaalada xeebaha ee uu walaalkaa ka tirsan yahay maxay tahay fariinta arrimahaas aad ka dirayso fariinta aan diraya waxa weeyaan in ciidankaas guud ahaan si gaar ah walaalkay inay hawsha ay hayaan ay tahay hawl qaran hawl ay u hayaan naftooda ay u hayaan ummadooda ay u hayaan qarankooda inay laabaan waxaan kula dardaarmi lahaa ciidamada guud ahaan ee ka shaqeeya ilaalada xeebaha inay laabaan hawsha ay ummadda u hayaan waa in ay ku fikiraan hawsha ay hayaan inay tahay hawl qaran ay u hayaan lafahooda ay u hayaan ummadooda ay u hayaan qarankooda saa daraadeedna marka ay hari habeen u soo jeedaan si ay u ilaalin lahaayeen hantida qaran.